muuse iyo nin kale oo qamariye la yidhaahdo oo isna baylot oo hadda hargeysa jooga duuliye ahaa waxaa lagu xidhay xamar booliisi militara lagu xidhay general gani oo hargeysa joogay oo airportka agagaariyada maraya xabada lagu riday marka taar buu soo diray uu leeyahay nimankaasaa ka dambeeya marka waa la xidhay niman kaloo badan baa ku xidhnaa muddo kadib waxaan ogaaday saraakiil badan inay ku xidhan tahay meesha aniguna waajibkayga ka mid ahayd inaan soo hubiyo meesha oo soo eego waan soo arkay markaa muusiyana waan ugu tegey calaa kulli xaal wasiirkii gaashaandhigga samatar baan ugu tegey oo aan leeyahay saraakiishan waa in go-aan laga gaadho samatarna wuxuu igu yidhi un aroorta hogaanka saraakiisha oo dhammaan saraakiisha report ha loo soo diyaariyo saraakiishii waa lasoo wada diyaariyey nin walba taliyihii ciidanka iyo ganaaxiyaa lagu siday labadan sarkaal baa la soo saaray maxaad ku xidhan tihiin markii hore lama soo saarin mar dambe gadaal laga keenay calaa kulli xaal iyagiina waa la soo daayey intaan la soo dayn markaa muuse 1981kii ayuu wasiirka iyagii gaashaandhigga oo cumar xaaji ahaa ayuu u raacay maraykanka cumar xaaji oo buro maraykan oo aad maraykanka u jecel baa soo noqday maraykankiina maxamed siyaad waxay culays ku saareen in wasiirka isagoo wasiir ku-xigeen kusimo ah in markaa wasiir rasmiya laga dhigo ayay rureen marka maxamed siyaad wuu been guuray wasiirnimadii buu ka ogolaaday laakiin wasiirka caafimaadku ka dhigo wasiirka gaashaandhiggu ka kaxeeyey marka cumar xaaji markaa wuu xanaaqay reaction buu sameeyey rag badanoo markaa cumar xaaji ugu jiro ismaaciil cali abokor cumar carte maxamed sheekh weyrax adugu raggaasaa la xidhay raggaa markay la xidhay de waxay noqotay in maxkamada loo diyaariyo marka cumar xaaji baa number 1 ahaa in ragga aad loo doondoonayey markaa waxaa lagu haystaa inuu heshiis gaara oo jaajoosnima uu la galay maraykanka ayaa lagu eedeynayey nuxurka inta hadalkuna waa intaasu nuxurkeeda marka cumar xaaji aadaf ingiriiska uma aqoon muuse isagoo xafiiska sirta iyo iibka ka shaqeeya qaybta sirta militariga ka shaqeeya ayuu markaa raacay markaa turjubaan buu u ahaa gacanyar u ahaa wax walbo ay ku wada hadleen maraykanka iyo cumar xaaji muuse biixi goobjoog buu lagu ogaa marka markii nimankii la xidhay wax la damcay dee nimankii in dembi lagu soo oogo markaa muuse biixi waxaa la damcay inuu noqdo ninka ku markhaati furaya cumar xaaji dhinaca kalena ogolaanaya inuu xidhiir la lahaa cumar carte iyo ismaaciil cali boqori markaa muuse aniga ma garanayo wuxuu sheegay waxaasoo dhan war uma hayo laakiin de waxaan la kulmay un marka intaasi dhacday muuse wuxuu igu yidhi intaan la xidhin kooras maraykana ii diyaarsanaa markaa kooraskii baan doonayaa inaan u baxo haye markaa haddaad hadda iga soo daysay sabatar u tago waxaad iga soo dhammaysaa in kooraskaygii laysiiyo aan baxe lai ogolaado marka maxamed cali sabatar waan u tegey waan u sheegay waxaan ku muuse arrintiisu waa sidaa markaa taliya kooraskiisii ha loo ogolaado sabatar markaa wuxuu igu yidhi muuse biixi arrintii cumar xaaji iyo maraykanka dhex martay isaguunbaa xoogogaalehe soo warayso ha kuu sheego ha cumar markaan u tegey muuse biixina oo aanu israacnay aanu wada hadallayna muuse wuxuu ii sheegay heshiisyadii aan ogaaya officialka ahaa ee documentedka ah intaa keliyun inay jiraan sabatar markaa waan ku warceliyey sabatar wuu ku qanci waayey marka wuxuu igu yidhi su-aal aad u adag wuxuu igu yidhi adigu muuse biixi miyaad aaminsan tahay marka waxaan ku idhi haa taliya wuxuu igu yidhi haddaad aaminsan tahay wuxuu hebel u sheegay ha kuu sheego hebelku waa nin kale waa nin reer somalilaana waa sidaydoo kale madax hoggaan wasaaradda gaashaandhiggaan wada joognaa ninkaasina waa nin reer somalilandara markaa durba muuse waxaa igu soo dhacday adiga daba socdana ma wixiibu kaa qarsaday markaa hebelna ma reernimo u raacay ilaa muuse ilaa yaraantayadii baanu israacnay dadkuna way isu kaayo xalinayaanoo dee muuse qoyskooda ay dhalay aniga oo dee ilma abti baanu nahay ama abti baanu isu nahay waxaan doonana baan ahaane markaa anoo xanaaqsan baan muuse waymidoo guradan kaga dhacay hoteel baanu tagnay guuleed la odhan jiray waanu casho tagnay markaanu casho tagnayna waxaan tuuqaa inaad tahay waad khiyaamaynaysaa qabiiliistii baa tahay kan bad muusan dabada u raacay dee madaxdiisiina waanoo nin madax u abaana muuse arrintii wuu ka xanaaqay aad buu dhibsaday wuxuu yidhi ninka i dilay baa ileen isma ogay ay xidhay ee i dilay ee kan ka dambeeyey ila waaba hebelkaba wallaahi bilaahi berrita aroortiiba ayaan qabsan doonaa war dee ana ma qabsan kartide ila anigu wasiirka gaashaandhigu anigu wax ii sheegay adigu hebel ma qabsan kartid laakiin waxaad u sheegtay ii sheeg ma jirto wiil muuse waxaan inta ahay
markaa aniga muuse kala tagnay go-aan baan gaadhay markaa waxaan go-aan ku gaadhay inaanan samatar ku noqon oonan odhanin muuse wii sheegi waaye inaan muuseba u geeyo samatar taasaan go'aansaday galabtii baan u imid markaa muuse inakeen baan waan soo kaxeeyey waxaan inakeen samatar baan kuu geynayaa haye u jawaab isaga markaa isagoo wadaan keenay samatar baan u tagnay waxaan taliya waa kan muuse aniga waxba uu ii sheegi waayey intaa unbuu ii sheegay dee bal taliya adigaba ha kuu sheega dhegeyso war haya muuse buu yidhi muuse intuunbuu ku celiyey intuunbuu sheegay muuse markaa waxba muu weydiin su-aal lama weydiin lamuna hadlin anigubu igu soo jeedsaday wuxuu igu yidhi jenaraal hebel jenaraal cabdillaahi cali cumar hoggaanka tababarka jooga ugee berrito kooriskiisii ha loo ogolaado ha u baxo haye alxamdulilah rabbialcaalamiin aniga muuse soo raacnay wada nimid aroortii muuse xafiiskii buu yimid markuu waan u sheegay cabdillahi cali cumar kooriskiisa ha loo diro muuse biixi markii baaba layidhi adigu warqadda daraafgareeyo hadda intaad qaato xafiiska o m c ga office of military corporationka waa xafiis maraykanka oo ka furan dalka oon ahayn safaaradda dee geysaba warqadda dee muuse isagaba warqaddii intuu qoruu daraafgareeyu qortay in loo ogolaaday bermishinkiina la siiyey muuse warqaddii baa loo geeyay adu calaa kulli xaal qoladii way soo ogolaatay nin halkan jooga oo jenaraal siyaad daawud la yidhaah siyaad daawud oo taliyaha ciidanka difaac cirka ayaa anigoo xafiiskayga wada fadhina ayuu muuse biix noo soo galay barqin uuna salaamay uu nala soo fadhiistay siyaad buu yidhi siyaadow doolaal intaasu ila qabtay adiguna abti baan kuu ahay maxaad adigu wuxuuna ila qaban weyday kusoo abti maxaan kuu qabtaa intuu nahay marka wuxuu waxaan doonayaa maadaama aan baxayo reerkuna inuu iraaco xaasku iraacdo marka adigu hadda samatar waxaad adna iga soo dhammaysaa xaaska in lay daro oo baasaboor la siiyo pocket moneyna lay siiyo xaaskana ka haysto siyaad wuxuu yidhi sabca wadaacan waan samaynaya dhowr maalmood kadib ayuu markaa siyaad iyo samatar kulmeen xafiiskii siyaad daawud markuu shaqadiisii samatar dhamaystay ayuu siyaad intii u sheegay markuu u sheegay unbuu ku soo jeedsaday uu yidhi war maxaad tidhi muuse biixi uu yidhi war caana hele kelmaddaasuu isticmaalaaye war caana hele odaygu wuxuu yidhi waa madaxweynehaya muuse biixi ha la xidho intaa kuma hakanne siciid mariinuu yidhi telefoonka ilaahda si cabdillaahi cali cumar waa janankii la yidhi koraska u dir janankiibuu baa la hadlay war cabdillaahi ha muuse biixi boliisii militaara u dira ha la soo xidho boliisii militaara ku xidha nabad sugiddaa idiin iman doonta iyada ku wareejiya iyagaa 20 jirow geyne wixiiba wuu sheegayba marka ninkii uu ninku u doonay lacagta iyo inuu xaaska raaciyo xabsi buu soo helay this is what the problem ta ugu adag waa taawi ninkii xabsi buu soo helay amarkiina wuu baxay bas samatar iyo siyaad way kala tageen siyaad markaa isagoo ordi buu ii soo galay albaabkii buu ii xidhay war maxaa dhacay wuxuu yidhi saasaa dhacday yaa saasaa dhacday oo ninkii hadda boliis militaara loo dirayaa haa oo meel la soo xidhayaa haa oo waa sidaa haa anna siyaad lamaan hadlin anna waan kacay naftaaxii baabuurkaygaan qaatay si aan u sii socday baan 9:15 meelaha gurigiisii ku garaacay muuse biixi xaaskaa iga furtay way naxday waayo weligood gurigooda ma garaacin mana iman saacaddanna waa cajiib waana labisanahay dee adugu iga furtoo gudihii galayoo muuse la soo kiciyo war waad xidhantahay soo labisa baan maxaan soo labistaa buu igu yidhi intuu istaagay waxaad soo labisataa waan dhar sibila caadiya kadibna waan isla soo baxnay baabuurkiis iyo baabuurkaygii baan isgarab yaallaba soo raacnay meel barnaanaan tagnay waan wada hadalnay dee waxaan u sheegay inuu maraykanka u galo si kaloo lagu baxsan kara ma jirtee waa inuu tababarka koroskii tababarkii baya maya waxba ma haysto maraykanka koroskii bay hayaan laakiin dee baasaboor ma haysto oo fiisa ma haysto oo tigidh ma haysto oo fasax ma haysto oo lacag ma haysto inuu caawa diyaaradda raacana waan rabaa go-aanka iyagu waa inuun caawa diyaaradda ka hadhin oo diyaaradda caawa ku dhunto uu maanta oo dhanna dhuumasho ku jiro oon la qaban dee gurigiina uuna ku noqon marka waxaana caawiyey markii dambe wiil reer gaalkacyooda muuse mar walba hadda i weydiiyo
ويلا نينكي طلع حقوق الدنبية ويل كاسام ميليتري مركان دوفي إنه وزارة دارميها دي بدأ باسبورات يد ما دام يهين كوا شغالة أساس هذا شيء يلا مركا وين لقى دونا ويل كيبا مركا دونا نو دونا باسبوركي هذا قد كل ويل كشغال مسلا ولا قال هذا حيان يقول ديرانين ويل كي باسبوركي بكياني لبيه طبعا كي مركا يحيد باسبوركي بلا soo helay warqadii lagu soo qaaday fasaxaydna uu wataa baasaboorkii iyo fasaxiisa oo wato Muuse xafiiskii Mareykanka u galay bas Muuse waanu kala lunay markaa way telefoon ma jiro waxba ma jiro arinta waxa ogo kaliya isaga xaaskiisa iyo aniga xaaskay labada saaw xaaskaygana waanu sheegay Fawzi Xasan Xaashi waxaan ku yidhi waxaad yeelaysaa aduu Muuse yimaado gurigeyga ku qari bedroomkeena ku qari isagana waanu sheegay waxaan ku yidhi gurigaaga ha tegin hadday kugu dhunto guri aniga gurigeyga gal gurigeyga ku dhumo laakiin de Muuse waan weyn Muuse Mareykanka markuu u dhiibay Mareykanka de waxay yidhaahdeen yaa og inaad maxaad run sheegayso dolaal baa ii sheegay dolaal waa reer hebel bay ku yidhaha waan naqaanaaye waa ninka caaneh oo dowladda raacsan may relative baana marka aan la hadlo marka Colonel Shortkii cafdo oo Mareykanka haysta de markii la aan la hadlo waxaan ku yidhi police caawi wuxuu what's the problem police caawi maan saddex jeer baa waxaan ku yidhi police caawi bas خلاص Muuse waan kala lunay naadiga horseed ciidamada qalabka sida ayaa galabta kubad ciyaaraya aniguna president-kii baan ahay garoonka kama maqnaan karo haddaan ka maqnaado waxay u qaadanayaan in laga eexanayo marka waa inaan garoonkii tagaa garoonkii baan tegey ma naadigaasaan president u ah marka ciyaarihii markaan ka soo noqday gurigeygii baan ku soo noqday daaradii waan fadhiistay Muuse wax war ma ka haysaa may xaaskaygii may kadibna officers club-kan tegey meel naadi oo anigu haddana ka hogaankayga siyaasadda ka mid ah baasha jaska ciyaara koox baa markaa meesha igu sugaysa anoo jaska ciyaarayay 8 barkii ayuu telefoon soo dhacay waxa la igu taliye telefoon gurigii baa laga doonaya telefoon ma la xunay xaajiyadeeda walaal hadda waxay igu tir soo carar waan cararay waxay igu tir Muuse hadda yimid baasaboorkii wuu watay waan ku ogaa tigidhkii iyo fiisadiina wuu haystaa garoonkan hadda tegayaa buu yidhi garoonka iyagina hangashtayadii baa joogtay dee nabad sugidayadii de way qabanayaan sarkaalkan fasax wadan marka hadda kuwa unbaaba igu daranba marka waa another decision inaan qaato de garoonkii baa isku sii daayey ها أنا مركها VIP بان هاي ويا بروتوكول كسرية وزارة دلكا مركها مدحونياش يمادان قرون كأنا كمسؤولة أمني جيسة يقرحين تيسة يسودوين تيسة يسلان تيسة أنا كان responsible كا مركها VIP في قربان قرانا مركها VIP ده من كسر قلي VIP ده من صاد أحمري هول كي من صاد أحمري كده بنوع حنكوي من counter كي immigration قرقة إسكسو تاجي موسى هول كي بيسود أحشوجا بلا مركها إلهي كويجي هنجش تلا شاجنبه هنجشتي بقى يدو ولا لا تاجن iyagu markaa sarkaal yimid u bee baxsaday oo ma fikirayaan laakiin warqadii buu wataa de baasaboorka lagu soo qaaday oo meesha ugu dhex jirtay sida daraadeed wiil mar waa dhaweyto booliiska Soomaaliya haystay oo janan hada ayaa markaa immigration ka fadhiyo oo nabad sugida kii uu man ku yiri saraakiis maxaa ku igu geliyay taliyan buu yiri maxaa dhacay war ninka halkan soo taagan halka taagan muxuu yahay war soo dhaqaaq wariya waa soo dhaqaaqay Muuse baasaboorkii kad baa la siiyay qoladiina way aragtay anigii bay aragtay hangashtiday aniga ay arkaan soo ma ma alaabtii bay la qaadayaan way caawinayaan wayna caawiyaan Muuse shamdadba ma wata wax yar buu watay wixii waa loo dhameeyay guduhu soo galay Muuse markuu soo galay hoolkii baan galay hoolkii wani baa la soo galay marka xageena u gudbay xaqi VIP dan tagay Muusena VIP baan ula talaabay meeshan dawladii oo dhan baa fadhida waa qosol leh wasiirra fadhiya VIP da fadhiyo odaygii Allah u naxariistay sheekheeni Sheekh Ali Suufi oo xanuunsan baa dhakhtar loo wada gabdhihiisoo dhan bay madaxay qabtaa dadkii oo dhan baa meesha fadhiya Muuse wixii uu barso soo dhax fadhiistay dawladii oo dhan wada dhoofayso ma dhax fadhiyaaba de markii dambe baa la yiri diyaaradda waqtigeedii waa la gaaray markay 10kii barkii ahayd dadku falaydka soo fuulo xaqi VIP du man ka baxnay ana birti VIP du man istaagay diyaaradda ka eegaya isaguna de toosun buu baxay odaygan madaxweynaha hadda dalka aabihi oo Abdullaahi Farmaajo oo markaa civil aviation ka haysta ayaan birta taagan isagaan garab taagay wuxuu iga sheekeynaya garoonka xagaana waan ballaadhinay nalalkaana waan hagaajinay wuxuu habeen ma ogtaa anigana Muuse
caqligaygu muusuu ku maqan yahay ها ما waan arkaa diyaaradda waan arkaa markuu fuulaya waan arkaa muuse waxba ma egeegin suu sii socday diyaaraddii buu dalqay uu galay muuse markaa diyaaraddii kacday ana ordi baan gurigayga ku soo noqday xaaskaygu bannaankay taagnayd dirac yaroo khafiifa bay xidhnayd dhaxanta diyaaraddii bay eegaysay inay kacdayna way aragtay markaan albaabka hoonka soo garaacay iyadoo ordi bay iga hor timid ilaa aan baabuurka ka joojinayay daaqaday gari ordaysay intaa maxay leedahay ma dhoofay bay leedahay markaan haa idhina way oyday she cried way oyday way ilmaysa calaa kulli xaal qisadu inta qosolka badan marka waa aroortii wixii dhacay dambe aroortii dambe markay ay 8 iyo barkii meelaha aan xafiiskayga fadhiyaa la yiri wasiirka ku doonayay block note-kayga baan la qaatay xafiiskii baan galay ninkii ii sheegay eeg haddaya ninkii aniga ii sheegay Siyaad Daawud ahaa wadwa Siyaad Daawud ogow oon shalay xafiiskayga kaga cararay janankii la yidhi xidh janankii haystay ciidamada xamar oo dhan degan ayaaba hor taaganba wasiirka anuguna intaan soo galay baan laynkii baan deecna intaan laynkii galay baan galay samataraayarin buu wuxuu iigu yidhi uun war muuse war dollar muuse bixi maaragta aayarun baa dhahaa tali oo mee tali xalay buu dhoofay oo maadigaa og anaaba taliya garoonka geeyey maadigaa geeyey anigaa geeyey taliya xalay buu garoonka ka dhoofay nimankii laysoo wada eeg moogta jenaraal cabdilaahi cali cumar baan ku xigaa saasuu ii soo eegay kolkaasaan intaan eegay dee wasiirka waxaan ku dhaho taliya maxaa dhacay cabdilaahi cali cumar automatic wiijo wuxuu yidhi hala xidhaa layidhi anu waxaan idhi taliya haddii la xidhayey inuuna iga fogeyn waa la ogaaye aniga maa la ii sheego anigu waxba kama ogi marka de anigu waxba kama ogidee waan dafiray laakiin markii dambe waxa la yidhi hala soo celiyo waxay dadku dowladdaydu moodaysaa muuse inuuna waxba ogeyn muuse by the way $20 buu la dhoofay adduunba $20 buu wataa reerna waxba ugama tegin isna $20 buu wataa $20 wuxuu ku talagalay airportka iyo gurigu ku degayo dowladda Soomaaliya inay soo celisay dabcaday dowladda Mareykankii way muuse wuu ogyahay ma soo noqonayo dowladda Mareykanka la yidhi kooraskana cancel gareey isna soo celiya oo dowladdu soo tarkiiska og muuse markaa kooraskiisii 2 years ka abu galay that's 1983 1985 kii buu soo dhameeyey markuu dhameeyey buu telefoon igula soo hadlay anoo Qaahire joogo Academy of Strategic Studies jooga wuxuu sheegay inuu tagayo oo dalka khaliijka tagayo Sacuudiga oo halka uu shaqo tagayo halka isagoo joogo haddana ay salmeeba igu xigtay